run ahaantii waa qiso cibro qaadashadeeda mudan. wiil dhalinyaro ah ayaa u yimid nin sheekh ah, wuxuuna ku yidhi, waxaan ahay wiil dhalinyaro ah, waxaana jeclahay oo xiiseeyaa mar kasta inaan dumarka shukaansado, mana awoodi inaan naftayda ka reebo fiirintooda marka ay waddooyinka marayaan, maxaan sameeyaa? sheekhii wuxuu fiiriyey wiilkii, wuxuuna siiyey koob kaasoo uu ka buuxo caano ilaa heer daadasho uu ka agdhow yahay, taasoo ah micnaheeda in koobkaasi caanaha si xad dhaaf loo buuxiyey. kadib sheekhii wuxuu ula dardaarmay wiilkii inuu aado meel hebel, uuna sii maro meel suuq ah asigoon waxba ka daadin koobkii caanaha. wuxuuna daba dhigay mid ka mid ah ardaydiisa si uu ula socdo xaaladda wiilka, kuna garaaco dadka hortooda haddii uu koobka caanaha waxyar ka daataan. dhab ahaantii wiilkii wuu gaaray meeshii loo diray asigoon waxba ka daadin koobkii caanaha. markii uu shiikha weydiiyey wiilkii, meeqa dumar ayaad waddada ku soo aragtay? wuxuu ku jawaabay wiilkii, waxna ma soo arkin, waxaan ka baqaayay inuu iga daato koobkii caanaha, kadibna ardaygaaga uu igu garaaco dadka hortooda, kadibna ceeb aan kala kulmo. wuxuu yidhi sheekhii, waa sidaas xaaladda mu'minka, wuxuu ka baqaa allah iyo maalinta qiyaamo haddii uu ku dhaco dembi. mu'minka dhabtana waa midka mar kasta iska ilaaliya ku dhicidda dembiyada. haddaba cid kastoo imaqlaysa waxaan leeyahay, noqda kuwa mar kasta xaqa la jahra. sii sheergaray oo la wadaag asxaabtaada si ay ugu cibro qaataan in shaa allah.